annagoo ah odayaasha gobolka Gedo gaar ahaan degmada Baardheero waxaan cambaaray dushooda tuuraynaa dawladda Jubbaland oo si xun oo arxan darro ah ula dhaqantay bulshada ku dhaqan gobolka Gedo khaas ahaan degmada Baardheero. annagoo marka odayaasha haddii ay shirka maanta qabanay koongareeska waxaan soo saarnay qodobo tiro badan oo gadaal laga sheegi doono. awalan xuquuqdii uu gobolka laabay lunsadeen sidii rag badan ay hore uga hadleen xuquuq kale oo dambe oo degmahan bay u lunsadeen haddana maalin walba waxay heer gaareen inay tooriyada suuqa ay dhiibaan mana ka aqbalayno. annagoo beesha talxa amaar reer ah waxaan eedayn cambaarsan dusha uga tuuraynaa maamulka Jubbaland ee hadda shaqeeya ayadoo uu xaqiray beesha xuquuqdeedii ka soo baxay odayaasha beesha talxe degan degmada Baardheero anagoo ku hadlaya afka ugaaska afka odayaasha nabadoonnada culamaa udiinka hooyooyinka gabdhaha ganacsada afkooda anoo ku hadlaya waxaan cambaaray dusha uga tuuraynaa maamulka Axmed Madoobe oo garaabsiga hor dhacay toorida way soo kaayay dhiibay hadda saacadaas laga bilaabo annaga soo kaayay dhiibay. Suldaan Axmed Dhaqane Xaaji oo kamid ah odayaasha ka qayb galay kulanka ayaa gabagabadii shirka saxaafadda uga warbixiyay kulanka iyo wixii uu ku saabsan. maanta ay ku beegan tahay taariikhda 14 bishii 11 sanada 2018 waa saxaafadeed ka soo baxay beelweynta talxa maareer oo kamid ah beelaha degan gobolka Gedo oo beesha sada insha Allah ta'ala waxaan rabnaa inaan idin soo gudbino qodobadii ka soo baxay saxaafadeedkii maanta ay ku yeesheen degmada Baardheere beelweynta beesha talxa maareer. number 1 waxaan diidanahay qaska iyo fawdada ay ka wadaan maamul goboleedka Jubbaland gaar ahaan madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe gobolka Gedo gaar ahaan degmada Baardheere. number 2 maamul goboleedka Jubbaland wuxuu diiday ama uu inkiray saamigii ay ku lahayd beesha talxa maareer heer state iyo heer gobol innaba inuu siiyo wixii ku lahaayeen. waxaan u sheegaynaa maamul goboleedka Jubbaland oo waqtigiisa ilaaday waxaan u sheegaynaa si degdeg ah haddii uu fawdada iyo qarabaadda uu joojin waayo wax Allah wuxuu meeshaas ka dhacay inay mas'uuliyaddeeda ay qaadi doonaan. waxaan cod dheer ku leenahay oo u sheegaynaa oo ugu baaqaynaa Jubbaland gaar ahaan Axmed Madoobe iyo cid la shaqayso gobolka Gedo qaska iyo fawdada iyo dhibaatada ay ku wadaan iyo hadda soo wadaan oo maqalna iyo isku dilka ay ka wadaan degmada gaar ahaan degmada Baardheere hadday si degdeg u joojin cawaaqibka ka imaada inay qaadan doonaan. waxaan leenahay oo u sheegaynaa dhammaan ummadda degto saddexda gobol ee loo yaqaan Jubbaland Axmed Madoobe iyo wax uu wado inaan ka soo horjeedno gaar ahaan dhammaan ku hadlaya uqaasha beesha talxa maareer afkooda dhammaan intii wax garada afkooda anoo ku hadlaya waxaan baaq u diraynaa Axmed Madoobe iyo Jubbaland inay si degdeg ah arrinta ay wadaan ay u joojiyaan xaqii ay beeshan ku lahaydna si emergency ah looga helo haddii laga waayo ayaga qaadi doona wixii ka imaado oo dhibaato